زيارة حمد خير الخلق كلهم ونحب سيعان لسلل مبغل مفضي إلى صمير ببلغنا زيارة حمد خير الخلق كلهم فإذا شوقي يهايجني سدني مظلم سلم dhowaan waxaa oran doonta haddii alla uu qadaro bil inta badan muslimiinta dunida ku nool ay ku farxaan oo ah bishii uu dhashay nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee halka dadka qaar ka mid oo farkutirisa aanay u ahayn bil farxadeed bishan ayaa si weyn looga xusaa guud ahaan caalamul islaam iyadoona la sameynayo isu soo baxyo ay dadku ku muujinayaan jaceylka ay u qabaan suubana sallallahu calayhi wasallam iyagoona akhrinaya nabi ammaane ay ku ammaanayaan xabiibka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee sidoo kale waxaa meesha ka marnayn ka sheekeynta taariikhdii dahabiga ahayd ee uu lahaa suubanaha sallallahu calayhi wasallam وسلام الله يغشاه محمد رحمة الرحمن نفعته محمد كم حلا في اللفظ معناه محمد رحمة الرحمن نفعته محمد كم حلا في اللفظ معناه جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نبي إن أذير كيس أيوها وحو أبحي دقالكي مؤتة أيو كشهيدي إنو كشهيدي لما أوغا مركا وحالة سو شايغي إني عيدانك أي سوالعبان دونان جعفر حاسكيسا وي إسديارينيسا وحي leedahay ninkaaga ayaa soo socda ilmihii bay u qabaysay way u labistay waxay ku leedahay aabihiina ayaa idin soo socda laakiin nabiga waxaa loo waxyooday Jacfar inuu shahiiday radiyallahu ta'ala an wuxuu aaday guriga Jacfar ayuu aaday ilmihii labisnaa oo aabahoodii imaashahoodii sugayay ayaa ku soo yaacay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagoo qoslaayo faraxsan nabiga hab siiyeen asagana hab intuu siiyay madaxa ayuu ka shushumiyay isagoo ooynaya oo hintiisa ayaa waxaa la soo baxday ilmaha hooyadood ayaa soo baxday waxay ku tiri yaa rasuulullaahi maxaa dhacay maxaa way oohintan waa maxay ma Jacfar shahiiday markaasuu ku yiri ha Jacfar ayaa shahiiday markaasay ilmihii oohin la dhaceen ilmihii hadda faraxsana farxadoodu waxay isku bedeshay oohin nabigana wuu la ooyay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yiri aniga ayaa idinka faala qaaday waxba ha murugoonina nabigeena sallallahu alayhi wasallam sidaasuu ahaa dhinac walba markaad fiirisid fi kulli tabaqa min at-tabaqati sidaasuu nabigu u daryeelay calayhi salaatu wasalaam nufuusta ayuu ilaalinay sallallahu alayhi wasallam rahmadaas ayaa maanta lanaga rabaa walaalayaal bulshadeena inaan la dhaxmarno القرطبي وحا تفسير كيسا وكشيغي قاضي عياد إساقنا كتاب كيسا الشفا بتعريف حقوق المصطفى يساقنا وكشيغي من حديث زيد بن أسلم سيدنا عمر ومقالة مدينة مرية أيا وحو مغلي قبر نبي محمد أمان عيسى صلى الله وسلم وبارك عليه أيو مغلي يا قبر ناس قصيدة ترينيس خير خلق الله أمانيس محيلا دهي على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليتني والمنايا أدوار متى تجمعني وحبيبي الدار نشيد كاسي قصيدة سي هبنك يورن إساقع العشانيس تتلذذ بذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيكون مع سنة عرب كذا صامر مرة خير خلق الله مقعيس مقع خير خلق الله يكون مع سنة
salliga nebi maxamed ku macaansanaysaa sala allahu calayh wasalam yaa gabadhaas markii sayidunaa cumar uu maqlay iyadoo nebigeenna ammaanaysa sala allahu calayh wasalam uu soo maray sayidunaa cumar muxuu sameeyey sida aharkii zayd bnu aslam uu warinayo sayidunaa cumar wuu fadhiistay markaasuu dhegaystay markaasuu ku ooyey meeshii yacni qof muslim ah oo caqligiisu uu saliim yahay oo caqiidadiisu ay saxiix tahay see khayru khalqillaahi majlis loogu ammaanayo uu caqligiisu u siin karaa xataa hadduusan ka qayb gelaynin inuu xataa caayo see u siin karaa caqligiisa iyo diintiisu yaa sayidunaa cumar gabadhaas khayru khalqillaahi ammaanaysay wuu fadhiistay markaasuu ooyey oo u dhegaystay gabadhaa qasiidadaa qaadaysa oo khayru khalqillaahi ammaanaysa war qof bini aadam ee caadi ah oo wax qiimaa iyo wax qadara aan lahayn ayaa dadka qaarkood markay xasuustaan ay soo ooyaan fa kayfa birasuulillaah rasuulka ilaahay ka waran waad og tihiin qisada waxaa jirta nin la yidhaaho majnuunu leyla gabarh leyla la yidhaaho u waash waa gabarh iska caadiya u waash bal u fiirso majnuunu leyla gabayo khataruu ninkaasi iska leeyahay oo gabadhaa uu ka tiriyey jacaylkeedii waa bini aadam iska caadi ah ayaa jacayl la jeclaadayaa loo ooyaa khayru khalqillaahi ka waran khayru khalqillaahi ka waran imisuu xaq kuugu leeyahay inaad u ooydo habeen iyo maalin ninkan gabayadiisa khatarta badan waxaa ugu khatar badan gabay dhahaya wuxuu yidhi usalli fa abkii fi salaati lidikraaha liya alweylu mimaa yaktubu almalakaani wuxuu yidhi maalin anoo salaad dukanaya oo ilaahay hortiisa taagan oo ilaahay u dukanaya ayaa leyla qalbigayga ku soo dhacday yuu yidhi fa abkii lidikraaha markaasaan magaceedii markuu igu soo dhacay ayaan ooyey yuu yidhi bal ninkaa fiiri heerka u gaara waa gabayada ninkaa uu gabadhaa ka tiriyey gabayada ugu khatarta badan salaadaan ku jira yuu yidhi markaasaan xasuusteedii u ooyey yuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi ninkaasi liya alweylu mimaa yaktubu almalakaani walle maalintaas halaag ayaa ii sugnaaday waxa malaa'igtu maalintaa ay iga qortay maalintaas wuxuu yidhi malaa'igtu wax xuna iga qortay uu yidhi maxaa yeelay gabar anoo ilaahay hor taagan oo salaad dukanaya ayaan gabaraan jecelahay u ooyey uu yidhi alla balaayada layga qoray tiro badan ah uu yidhi hadda waaba runtiisba balaayo waaba laga qorayba nin ilaahay hor taagan oo ilaahay caabudaya oo dhahaya leyla igu soo dhacday markaasaan ooyey dhahayo subxaana allah marka waxaan ula jeednaa war qof bini aadamah oo iska daciifa wax qadar iyo sharaf iyo maqaam uu leeyahay aan jirin ayaa jacayl inta la jeclaadaa loo ooyaa kam imisuu kaa mudan yahay khayru khalqillaahi inaad u oyso imisuu xuquuq kugu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam imisuu abaal kugu leeyahay nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh bal ciddata mawaaqif wa ciddatu mawaadic adiga dartaa meeqa goor ayuu u ooyey ummadda markuu xasuustay nabigeennu sala allahu calayh wasalam meeqa goor uu ooyey rasuulkeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qolyaha wahaabiyada ah ayaa bishaan ku tilmaameen inay tahay bil shirki ah iyagoona ka soo horjeeda weynaynta iyo barashada siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam